قلبي تحلى بسعة حين لاقاك وأدمعا مسحات من بين ذكراك. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن بدر runtii waxaan ka hadalnay dadka waxyaalaha ku dhaca sida amraada ama jin ha noqoto ama sixir ha noqoto ama il ha noqoto ama xanuunadan kale ku dhaca qofka bini aadanka sida kansarka, jooniska waxyaalahaas ha noqdeen. maanta waxaan isku daynaa insha Allah taala inaan ka sheekayno amraada ku dhacda qofka qalbigiisa oo runtii aan u aragno inay ka daran tahay tacaadiga ee dhakhtarku daweeyo ama tacaadiga wadaadada inta loo geeyo sida isha iyo sixirka iyo jinka intay quraanka ku akhriyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saa ku caafiyo. waxaa jirta cudur aan la ogeyn oo runtii qofku isagoo qalbigiisu isagoo jismigiisu weyn yahay isagoo caafimaad qaba haddana laga yaabo in ay haysto uuna is ogeyn. qofka qalbiga bini aadanka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo siiyey waa ka wax weeleeya wuxuuna weeleeyaa runtii waxa adiga kugu weyn. tusaale ahaan haddii adduunyadu kugu weyn tahay intaa wuxuu ka sheekeynayaa adduunkii, wuxuu ka sheekeynayaa sidii adduunka loo raaci lahaa, wuxuu ka sheekeynayaa sidii dhaqaalo loo samayn lahaa, wuxuu ka sheekeynayaa yacni qalbigaagi waxa ku soo laalaabanaya waa wixii adiga kugu weynaa. jirada ugu weyn marka qalbiga ku dhacda waa adoo garan waaya Allihii ku abuurtay subxaanahu wa tacaala iyo waxa uu ku abuurtay. tusaale ahaan ilaahay wuxuu ku yiri wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. jin iyo insi waxaan u abuuray Allah subxaanahu wa tacaala inay caabudaan. waxaad garan waayaysaa hadafkii koonka lagu keenay. qalbigaagi wuxuu ku ordayaa mar walba ama uu raacaya wax kale inaad biqayr Allah u yeerato, inaad adduunyo raacdo, inaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishoon, inaadan Allah subxaanahu wa tacaala isku xidhin. waxaad markaa tahay qof jiran oo runtii jiradiisuna ayna fahmi karin dhakhaatiirtu. laakiin jiradaada waxaa la doonayaa markaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa aragto inaad dib ugu soo laabato ilaahay aayaadkiisa oo aad fiirfiiriso adigu xaggaad joogtaa. marka mu'miniinta laga sheekeeyo ama marka gaalada laga sheekeeyo ama marka munaafiqiinta laga sheekeeyo qofka wax fahansan ee wax dareemi kara wuxuu isku miisaami karaa cidda uu yahay cidee ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala salaadiisa ma ku qashuucdaa? mu'miniintu ay ku qashuucaan qalbigooduna ilaahay buu ku xidhan yahay subxaanahu wa tacaala. qalbigoodu ilaahay buu isu dhiibay, qalbigoodu ilaahay aayaadkiisuu qaatay, qalbigoodu waa qalbi mar walba weelaynaya oo raadinaya sidii Allah subxaanahu wa tacaala uu ku raali gelin lahaa. marka mu'miniinta laga sheekeeyo ee sifooyinkooda la soo qaado ee ilaahay aayaadkiisu ay ka sheekeeyaan qofka mu'minka uu ku raaxaysanaya. maxaa yeelay wuxuu arkayaa sifadii isagu uu lahaa inay ilaahay ka sheekeynayo subxaanahu wa tacaala, inuu salaadii la yimi oo oogay, inuu rabbi isku xidhay, inuu sadaqadii bixinayo, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala masaajidkiisii iyo diintiisii ka fakarayo, inuu khayraadkii wax ku darsanayo. yacni wixii qof mu'mina laga rabay oo dhan baa laga yaabaa qaybo badan oo ka mid ah inuu weeleeyay qalbigiisii. qofka gaalka waaba gaal. ilaahay wuxuu ku yiri subxaanahu wa tacaala yacni wuxuu saaray maxay khishaawa dabool baa saaran. haddaad maanta oo dhan alle subxaanahu wa tacaala uga sheekaynayso oo ilaahay diintiisa u sheegayso waxa laga yaabaa inuu keer la iska yahay waxanba qalbigiisa ay ku soo dhacay. maxaa yeelay dabool baa saaran. dabool qalbigiisii ma saaro kuma xidhna, laakiin dabool baa wuxuu ka saaran yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqi u soo dejiyay wixii koonka uu keensaday inuu fahmo. wuxuu fahmayaa adduunkii, wuxuu fahmayaa sidii diyaaradaha loo sameeyay, wuxuu fahmayaa sidii maraakiibta loo sameeyay, wuxuu fahmayaa sidii badda gudaheeda wax looga soo baxay, wuxuu fahmayaa dhulka qaybo aad u hooseeya sidii loo gaaray, sida cirka loo mari lahaa hawada. laakiin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisu ay timaado qalbigaas uma jeedo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala raaco oo aayaadkiisii uu dib ugu soo laabto. qalbiga saddexaad ee jiradu ay ku dhacdo
oo jirada aadka ay ku dhacdo waa qalbiga dadka munaafiqiinta dad sheeganay wa min an-nas man yaqulu amanna billah wa bil yawmil aakhir wa ma hum bimu'minin kuwa sheeganay in ilaahay rumaysan yihiin maalinta yawm al-qiyaamah rumaysan yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala uu diiday inay mu'miniin yihiin dibka haysta muxuu yahay dadkanu qaar masaajidadii way galayaan waxa laga yaabaa sadaqaadka inay bixinayaan waxa laga yaabaa in badan oo muslimiinta khayraad ay bixinayaan inay la bixinayaan haddana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u diiday wama hum bimu'minin ma sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay fi qulubihim marad fasadahum Allah marad qalbigooda jiran qalbiga hadda inuu ka sheekeynayno meesha mu'miniintu ilaahay ay yaqiinsadeen subhanahu wa ta'ala maalinta yawm al-qiyaamah ay rumeeyeen ilaahay ay ka xishoonayaan salaadii ay oogayaan khayraadka ay la iimaanayaan oo qalbigoodu uu waxan ka soo go'ayo oo qalbigoodu uu taasiirinayo ama qalbigoodu uu xaqiijinayo shaygan inuu sameeyo iyagu waxa laga yaabaa inayna rumayn oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qoladaas muuminiinta markay saa ilaahay u rumeeyeen iyagu dhalanteed bay u qaadanayaan marka aakhira laga sheekeeyo maskaxdooda waxa galaysa waxaan dhacayn baynu yahay saaxiibay leeyihiin kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kufriyay oo adduunyadaas isla nuugaan aakhirana ma maqlaan marka qalbiga walaalayaal in badan waxaan ka sheekeynay in qofka jiradiisa sida kansar baa ku dhaca dawa loo qoraa waxa laga yaabaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka caafiyo laakiin adigu haddaadan ilaahay u soo laaban oo qalbigii jirana hadii qolofkaagu weyn yahay dhaqaale aad haysato aad fiican tahay caafimaadka kale uu fiican yahay laakiin qalbiga ilaahay aadan kaga toosnayn jiradii ugu xumayd baa ku haysa ee isku day inaad ilaahay u soo laabato subhanahu wa ta'ala inaad ilaahay u soo laabato oo aad isku daydo qalbiga ilaahay uu ku siiyay inaad ilaahay la hor tagto isagoo nadiif isagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqday isagoo ilaahay isu dhiibay isagoo rabbigii aayaadkiisii qaatay isku day waxa qalbiga bila aadanka uu nadiif ku noqon kara oo jiradaas ay uga bixi kartaa waa Allihii ku abuurtay oo aad garato koonka yaa ku keenay Allah yaa ku aysiiyay Allah yaa bari markaad yaani maaragtay yaa ku soo nooleynaya Allah yaa qabriga ka soo saarayo dib ku soo waxaynay Allah wayna dareenta Allihii koonkan abuurtay iyo waxa uu ku abuurtay inaad kaga dhabayso taas waxay noqonaysaa inay adiga daawo ku noqoto oo markaad Ilaahay hor tagto subhanahu wa ta'ala adoo nadiifa oo jiro kala qabin gaal ahayn munaafiq ahayn oo mu'mina inaad Ilaahay hor tagto imma qolada jiran ee qalbigooda jiran yahay sida gaalada iyo munaafiqiinta iyagu Ilaahay waxay la hortagayaan subhanahu wa ta'ala qalbi aan nadiif ahayn oo been aha oo wixii loo abuurtay diiday oo rabbi aayaadkiisii ka hor yimi markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala labadooda israacinaya dadka muuminiinta ee qalbiga saalixa la yimina Allah subhanahu wa ta'ala u jannada geynaya marka aynu isku dayno war maanta qulubteena aynu fiirino qalbiyadeena aynu fiirino mid ba meel taagan mid xamanaya yaa ku dirsaday maxaad qalbigaaga u duleynaysa dadku maanta qofku ha ka faa'iideysa fursadda uu haysto ummadda ha isku dayo inuu wax u qabto intuu meel taagnaan lahaa waxa laga yaabaa masaajid inuu ka soo baxo halka la taagan yahay hebel muxuu yiri hebla maxay tahay kaas muxuu yahay yaa ku dirsaday kaas يعني wax la yaab leh way qof la doonayo waqtigiisa maanta inuu ku xisaabtamo oo Ilaahay in badan xuso subhanahu wa ta'ala inuu intuu meel hebel baa yiri iyo hebla tiri iyo hebel baa waxaan isaga danahayn inuu ku wareego danku ma ah warjaaniska ka faa'iideyso Ilaahayna u soo laabo subhanahu wa ta'ala meel aad istaagto oo waqti aad lumiso waxba kuma taray maanta qofka muslimka ee Ilaahay garanaya waqti ma lumiyaba maxay yeelay sida waa la og yahay maanta waxaynu nahay meesha aynu taaganahay marka waqti haluminin qalbigaagu ha noqdo qalbi Ilaahay ku xiran qalbi Ilaahay aayaadkiisa qaatay qalbi qashuucay qalbi Rabbi subhanahu wa ta'ala isku xiray wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh